saylada xoolaha nool ee magaalada Burco waa mid leh taariikh guuna iyadoo taariikhda saylada lagu tilmaamay in ay mar la bilaabantay waqtiyadii la magaaleynayay magaalada Burco waxayna ka mid tahay meelaha ay suugaantooda ku soo qaadan jireen suugaanyahanadii hore ee Soomaalidu saylada xoolaha Burco oo lagu tilmaamo tan ugu weyn geeska Afrika ayaa waxaanu saaka u qalab qaadanay sidii aan ugu kuurgali lahayn xaaladda ay waqtigan ku sugan tahay sayladu maadaama ay gobolka Togdheer iyo deegaamada hoos yimaada ay ku dhufatay xaalad abaareed oo galaafatay xoolihii kala duwanaa ee lagu kala iibsan jiray saylada ugu horeyntii waxaan wax ka weydiiyay dadka ganacsada saylada halka ay ka yimaadaan xoolaha iibinayaan waxayna igu jawaabeen gobolka Togdheer isaga xoolaha u sitay isaga meel walba loo garab jiray maanta maxaan ku raday way xooluhu way ka siman yihiin xaabay noqdeen ya haray waxba lagu fali maayo adduunyadu intay weligeed jirtay ama kooska lagu noolaa xaaladan oo kale looma soo joogin gobolka kale lagama keenin maanta ka hor ama gobolka maxaan ku raday ama galbeed ama maroodo jeexo kale wajaale maanta ka hor lama arag lama maqal in xoolo looga keeno Burco si loogu iibiyo سمعتنا كتير حوالها أنت مجال جو سكيب ستايم وكذا كلامه وحنا نتاجرنا هذا أرجو بدل ما تاجرنا هذا تعرف هذا وصامرين يلا أرجع برا على قصة قادم وشارع يو هذول بدل جميلة يو قلبات أنا أقول إن بدل ما تشوف السنة كله ودو رجع يقصر غير مشي حوالها مع عينك أركيسان وحلقة كان قلبات لكن دول بتقدر تسوي حوالي سوي ستايل ما هو وحي ما ضاع ده كذا اللي حوالها أول بوي نسعين أرجع كلن الشنات إلا أقدر كذا ما ضوي نسعين لكن حوالها إنك كائن عصب عن طريق هذا وجري هو حوالها كذا ما ضد قبل كائن أو ضد قبل كائن مرة الشيء واحد قلبك سعيد saylada Burco ayaa ahayd mid ku caanayn waqtiyada carafada laga raro xoolaha kala duwan ee ka yimaada deegaamada bariga Soomaaliya laakiin waqtigan xaaladda saylada waa mid isku bedeshay cagsiga waana mid xoolaha ugu badan ee laga kala iibsanayo qiimo ahaanna ugu sareeya ay yihiin kuwa ka imanaya gobolada Maroodi Jeex iyo Gabiley taasi oo ay sababtay xaaladda abaareed ee ka jirta gobolada bariga Soomaaliland Xasan Xanduladun Carbeed telefishka caalamiga ee Bari TV magaalada Burco